magaala madaxda caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo xilligani ka soconayaan horumaro dhinacyo badan ah marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay ayaa xilligani waxa ku soo badanayay falal ka duwan falalkaasi ka turjumaya horumarka magaalada Muqdisho maanta bilic ahaan iyo waliba muuqaal ahaan wax weyn ayaa iska bedelay marka dhex marto wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho waxay indhaha ku qabanayaan muuqaalo soo jiidanaya indhaha maadaama dhismooyin xooggan xilligan ay ka socdaan gudaha magaalada Muqdisho sidoo kale waxa isna sidaas si lamid ah laga dareemayaa horumar xooggan dhanka ganacsiga sida idin muuqanaysa laakiin xilligan ka bedelan xaalka sidii hore oo waxa oo dhan bedelay walwal cabsi qarax iyo waliba dilal qorsheysan Muqdisho xilligan waxa ku soo kordhay oo sidii daad camal ku soo fatahay dilalka iyo waliba qaraxyada qorsheysan kuwaasi oo la eeganaya mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo waliba xarumaha dawladda Soomaaliya intaba dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqotay mid gacan ku gambad ah marka loo eego xal u helida ammaanka dalka oo faraha ka sii baxaya waxa isqabsaday qayladhaanta ka soo yeeraysa beesha caalamka kaasi oo ku aadan qalqalka xooggan ee dhanka ammaanka ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya taasi oo xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu jawaab uga dhigtay isbedel ay ku sameynayso laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya sida taliska booliska nabad sugidda wasaaradda ammaanka si xal waara looga helo ammaanka dalka Soomaaliya wareegta uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa ku xusnay taliyaha booliska iyo waliba kan nabad sugidda inay si toos ah hoos tagayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho laakiin arintaasi wali ma saldhigan waxaana qayladhaan ka muujiyay duqa magaalada Muqdisho oo cadeeyay inaysan si toos ah u hoos imaan laamaha ammaanka sida taliyaha booliska iyo waliba midka nabad sugidda kadib ammaanka magaalada Muqdisho oo faraha ka sii baxaya dhowr 20 sano ayay dhibaatadan ku soo noqonaysaa marka waa inaan ka faa'iideysanaa tajribadaas hore waxaan aaminsanahay in Muqdisho u baahanta barnaamij gaar ah oo ah la yiraahdo xasilinta nabadgelyada caasimadda in la xasiliyo barnaamijkaasna asagoo faahfaahsan asna waxaan u gudbiyay hay'adaha ku shaqada leh oo guddiga amniga golaha wasaaradda amniga dhammaan waan u gudbiyay waxaan aaminsanahay xilligan in Muqdisho barnaamijkeeda si hoose oo local ah loo xaliyo nabadgelyadeeda taa macnaheedu tahay in la helo mashruucaas أو إنه قامي مشروع عاصم مملكة قبل كبنادر. ودكتين قبل ذلك قار نبض يا كجرتو وكفر حسنها إلهي إنه أوسي هذه أولى بالعب. حلقة الجارة وحلق الهواء. مقدشون وعاصمة الصومالي هذه حلقة جارة وحكي لك أنت هاي الصومالي هي حلقة جارة. تدك حلقة اللي جارة هنا ولا مليون بر أو صومالي ما نقول جارة ما مدقنا قبيل جارة. مركز حلقة وحلقة جارة لا هي إلى تهاي. برنامج كم مقدشو وإن له عيدا مكفلا أو بوليسا يوكو كفلا إنه مسكون العادة إسلام مركان أوه جاميو ما ملكو قبل كبنادر جار هاي ماذا أود قدوميها قبل كهستسي ماذا حنا مثلا تهدي لجاره فلا كدعي إن سوق بجبي كرنو إن نقول لسكرنا مقدشو حق أمني جاه إن ديارنا مسؤول ده سنغانو ده أنا عندوش أريد إنه تاسنا دور جريدة عداوة كمغليسين والوضع دواقي لكن ولي مرة ماستر من waxaan ku baaqayaa arintaas in la dedejiyo la dhameystiro maamulka gobolka Banaadirna booliiskeena basuugida gobolka heer gobol laga dhigo gacantana loo soo geliyo eedaasna anaga dusha naga la saaro nagulana xisaabtamo Muqdisho ayaa xilligan hooy u noqotay qaraxyo iyo waliba dilal qorsheysan waxayna cabsida ugu badan xilligan soo wajahday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu dhawaanahan socday beegsigooda wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya oo madax ka yahay Khaliif Axmed Irig ayaa soo saartay qorshe ay wax uga qabanayso ammaanka dalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Gaabo Royal TV Muqdisho